magaalada Addis Ababa aad baa looga dhoofaa marka dadka dhan dhoof bay u joogaan waa qof baxa iyo qof soo noqda qof baxa iyo qof soo noqda aniga cidna ima maqan marka ceela ima qodno de cid i kaxaynaysa iyo cid yani dan igala markaa ma jirto waxaan ka shaqayn jiray booli makaahil baa cabaar ka shaqayn jiray ilaa ugu dhowr sano ah gabadhan aad iskugu fiicannahay baa waxaan ku yidhi walaalay waxay igu tiri ma laguma qaba miyaa makasaan idhi maya walaalay ma qaba laakiin wiilan aad isugu fiicnayn baa tahriibay ilaa haddana warka maha inuu nool yahay inuu dhintay isagaa iska sugay intuu ila soo hadlaya markaasay igu tiri maya waxaa samaysaa adduunyadan 4 indhaha loo qaybiyaaye iska shukaansanin oo iska guursa i tiri markaasaan ku idhi waa iska shaqaystaa hadda laakiinse isaga intuu ka imanayaan iska sugayaa waan balannay ballanta wuxuu ii qabtay sanadka soo socda bisha 6aad sheekadii sidii ahayd waxaa la yidhi dee maaragtay nin walba dantiisu yaqaanaayo xilligii baa la soo gaaray waqtigu wuxuu cararaba ninkii baa yimid waan isguursanay markaan isguursanay reerkii lala hadlay oo dee meherkii qarac laga siiyey ayaa waxaan u wacay gabadhan aad isugu fiicannahay oo saaxiibanahay waxaan ku ihi walaalay macaani kaalay 7 iga saaro inan 7 bax bay igu timid marka inantu waa inan qurux badanoo kaala iska araga horena waxaa loo yidhi nin damac iyo dacari midna kama dhammaato gabadhan marka waxaan daawan jirnay filim baan la odhan jiray maariya maar baan daawan jirnay oo meksikaano carabi lagu tarjumay allah yow ladna ayaa markaan lacagta dhiibay allah yow ladna iyaba ima inaanan odhan oon kaba aamuso ninkii fadhigu fadhiyaa gabadhii markay cunto keentay iyadunbuu eegayaa gabadhana ilaahay baa wuxuu ku manaystay alaabtii imiga ayuu kaar la sheegaya kursiga buuxinaysay buu alla u dhiibay kuto fiican marka waxaan ku iri salkiibaa dee camiran waa buurtii naasa hablooda socota haye aniguna waxaanay darawal candhameyd la wada haye gabadhin buu eegayaa anigaba ima eego ninku sidaa unbuu gabadha u raacaya markay baxdo ma xanuunsanaysaa iska naso kaale filinka daawo anigana waxaan 7 ku jiraa isla xiniyuuna kaa go'ine ninka gabadhii buu ka jeedsan waaye ma gabadha kale kuley kaale xinna marso may anu xinna ii marsan xiniyuuna iga go'aan diidayaa haye isagiina anigaba indha ii malay qaba gabadha unbu raba inuu baashaali soo fadhiiso kaalay magaalada ma tagnaa ma soo wareegna ina mariya israacana ina mariya ha ka tegin gabadha kadaa shaqada badan gabadhii unbuu ninka ka daba dhacay adkaatay adigaba kuma arkaba aniga xaguu iga arkaa waxaan ku idhi sii jeedka ka malafan soo jeedka ka malafan waa qori socdoosan iyo af leh haye gabadha hadday soo jeedsatana rasaas baa dhacaysa hadday sii jeedsatana rasaas baa dhacaysa hadday sii jeedsatana rasaas baa dhacaysa waxaad ka wadaa waxay leedahay wax alaab raran hadday soo jeedsatana alaab raran waa caynka adiga markaa laakiin waxaad tahay siman ka malafan haye waa sheekadii ka malafan iyo marka waxaan ku uqdad baa igu dhacay jirkiibaa uqdad ka qaaday oo waxaan ku idhi qaracankii ugu dambeeyey waxaan ku idhi muraayadda ma tago 2 sharabaada gashada feedhaha waxba kama soo muuqdaan kicitaanka xataa gadaal inaan u baxaan keeno horeyba aanan soo fiirinin taariikh baa isoo martay gabadhii wiilkii xilligii waqtigiisii baa la gaadhay wuxuu joogayay markaa bil wuxuu igu yidhi gabadhan marka ku haystaa isaguyo gabadha ha kula joogto gabadha wuxuu igu yidhi cid uma joogto adhiso maadaamay saaxiibadaa tahay ha kula joogto isla sii joog adiga idinkuyo anaa idin biilaya lacagta xataa idin kordhinaya gabadhii wayba igu haysataaba ilaahay amar gabadhu sida ii jeceshay wanaageeda laakiin anigu qalbigii baan dabadeedii leegaygii baan qalbiga ku hayaayo gabadha col baan hoostaa kala ahay laakiin de kelinimadana waan diidaya la joogtana waa rabaa haye laakiin odayga markaad wada jiibsataan ma weydiisid uma sheegtid maya lama dareensiiyo arrintaada hoostaa lagu haystaa cidna waxba looma sheego qof waxaa tahay samac iyo basar waad fahmaysa ilaahay garaadka wuxuu kusinax ku garato qofkan indhihiisu meeshay eegayaan iyo qofka ahmiga uu siinaya iyo qofka maaragta sida uu rabo inuu ula hadlo iyo yani indhihiisaad ka dareemaysaa qofka wuxuu isha la raacayay iyo markii la sheeg imika 2 qof example waxaan kuu sheegay dhegeyso haddii aniga qof kale kuu sheekaynayno aniga ininta hinda haddaan kuu sheekaynayno waadna fahmaysaa qofka marka sheekadiisa aad fiirinaysa iyo qofka kale qofku fiirinaya sheekadu ku socoto kan kalena waa dhegeyste marka anu dhegeystaan meesha ka ahaa haye baxye tagiye meeshiisibuu ku laabtay qorbihiisu iskaga laabtay lacag buu iisoo diraa mar kastoo ila hadla wuxuu igu dhadaan gabadha ii dhiiba wuu salaamayo seeta walan fiican tahay haddaad wax u baahata ka qaado unbuu ku yidhahdaa faynuus ka qaado waxaad u baahata faynuus ka qaado anuu igu balamiyaa gabadhii kale kugu balaminaya iyada marka waxaad u baahato haddaad u baahato maaragtay waxa dumarkii waxyaalahaas
feenus baa ku siinaysa adkaati wallahi billahi wartiin adkaati dahabshiilna adkaati asxaab badan bay nagu soo biirtay fahansiya horta adkaati fahansiya soona dhaweeya dadka badan soo dhaweeya asxaab badan bay nagu soo biirtay miski farxiyo dhammaantiin intiina joogtaa soo dhaweeya dadka haye marka anigana de ma raba inaan ninka waaye ma doonayo sababta oo ah reer yaroo faqiiraan ka dhashan waxba haysan labada dhinac mid loo fakadana male waxaan ku yidhi xaaladda idna jeexjeexday oo waxaan ku yidhi imkaa